halkan hortaaganahay waa maqaayada Dabayare durbamankaada waxa ku soo dhacay wixii xalay waqtigan oo kale ka dhacay inta baraha bulshada hadii aad fiiriso waxa siyaabooyin kala duwan la isku dhaxmaraya shaqaqadii ka dhacday xalay maqaayada ase yeeshee waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdada xaqiiqada waxay ku saleysneed iyo sida ay sheekada ku bilaabatay markaas كلامك الموفق وهذه مفيد وحي كنت كلامك حتى لو قبتنا عن فليا جارحان ميسكا علي وحاسي ودجرها وعشي تدبروا وسوق جري ولا لي قبل خواص أوضل قضي موفدا حتى يهرت على يدين مقتيله markay cashadu dhameeyeen waxa ay damceen in ayagoo aysan lacag iibin ay iska baxaan sida maamulka meesha ay noo sheegeen balse maamulka markuu uu weydiistay lacagta waxay xuseen sidoo kale maamulkeen dadkaasi ay sameeyeen awood sheegasho kadibna ay dalbadeen ciidan sidoo kale milkiilaha goobta dhankiisa waxa uu dalbaday laamaha amniga si xoolihiisa ugu qaata dadka balse waxa isku dhacay laamihii amniga oo maamulka dalbaday iyo ayagii halkan ku casheeyay 7 ruux oo socday oo dhankooda askar dalbaday shaqaqada kadib waxa halkaas ku dhintay hal qof 3 kalena way ku dhaawacmeen waxayna ahaayeen dad shacab hadda waxa xiran sida maamulka ay noo cadeeyeen dhamaan dadkii ka dambeeyay inay shaqaqadu ka dhacday sida awood sheegashada wuxuu ugu cunay maqaayada iyadoona wararka ay helayno ay tilmaamayaan in dhimashada dhaawac uu soo kala gaaray askartii ka kala socotay labada dhinac ay haystay dadku waxay bada qorayeen lacagta la isku haystay inay gaarayso 2,000 ilaa 3,000 shilinka Soomaaliga maamulahaas wuxuu noo sheegay lacagta la isku qabsaday inay ahayd $14 keliyana ay dadkaasi ku casheeyeen muufo ana ahayn askar ayuu yiri maqaayada maamulkeeda dadkii xalay maqaayadeeda ka casheeyay wana been abuur ayuu sidoo kale ku tilmaamay waxyaabihii baraha bulshada lagu soo qoray xilli uu la hadlayay TV-ga Dalsan anigoo magacayga la yiraahdo Maxamed Yuusuf Dabayare shaqaqada halka ka dhacday waxay ahayd waxa ka casheeyay 7 ruux oo shacab ah hadii lacagtii la weydiiyay cashada cunanay baxeen banaanka geeyeen awood sheegasho iyo dagaal iyo fiiri keeneen kadibna waxay wacdeen askarteedii wacdeen annagana laama abdigan wacnay askartii markaas timida bartaasi ka bilaabatay shaqaqadii israasayntii meeshaas waxa dhaawac dad ka soo gaaray 3 ruux iyo qof dhimasho ah annaguna hantidii dadkii casheynay way naga kala carreen inta cashaa oo tiil way naga halawday meeshaas qasaaro badan naga soo gaaray warkaas waa been waa warka media la isku dhaxmarayay wax kama jiraan ragga naga casheeyay iyo rag dumar isku jireen waxay ahaayeen shacab waxay wacdeen askaray wacdeen annagana laama abdigan wacnay markaas shaqaqada sidaas ku dhalatay maya shaqada si caadi u socotaa oo saaka waaga dibari waa laga shaqeynay ilaa hadda waa la shaqeynaya hadda waa dhax taaganta waa arkaysaa wax saameyn nagu yeelato ma in balaad bulshada ay dhahan lacag yar oo 3,000 la isku dagaalay iyo warkaas ay wadaan ma ahane wax kale oo saameyn aan ku aragno ma jiraan shaqadina waa aad u socotaa lacagta ay qabeen lacag $14 kor u dhaafisay eeday way la baxeen awood sheegashay kula baxeen ka bacdina ciidan dalbadeen annagana laama amnigan waa